الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصلى اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسي كصافسنا الأمة الإسلامية بين الآلام والآمال وأمد مسلمين تاين يودحيسو dhibaatooyin iyo mashaakil haysta iyo rajaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka qabaan iyo mustaqbal fiican oo ay rajaynayaan. darsiga qaybtiisii koowaad baynu akhrinay, qaybtiisa labaad waxaynu kaga hadlaynaa التاريخ علاج للآلام. taariikhdu inay tahay waxa wax lagu daweeyo ee bogsiisee dhayda dhibaatooyinka dadka ku dhaca, rajana abuurta. ولذلك baa waxaa la yidhahaa man yaqra' التاريخ laa yadkhul اليأس في qalbi. qofka taariikhda akhriya bay yidhaahdaan ee taariikhda daraaseeya quustu qalbigiisa ma gasho, ma quusto. waxaan u arkaa adduunka sidii ilaahay baa ku tilmaamay ayaamo isbedbedelaya oo bayna alghaalib waalmaqluub isbedbedelaya. inteena badan waa dhibaysaa dhibaatooyinka maanta isha aynu ku arkaynay caalamka ka socda. مثلا waxa Gaza ka socda oo ah dad inta meel yar oo kooban lagu ooday wixii hub dunida yaallo dhanna lagu tijaabinayo, wax walbana laga mamnuucay. layd, biyo, cunno, nololoo dhan wixii ku saabsiisnaana loo diiday. wax bini aadam lagu gubo dhammaantiina lagu gubayo. waxaynu arkaynay suuriya hadda isa soo bedeshay iyo wixii ka dhacay. waxaynu hore u aragnay lebnaan iyo wixii ka dhacay. waxa dad badan isweydiinayaan barme iyo wixii ka dhacay, rohangaha dadkii muslimiinta ahaa ee dumar iyo carruur iyo cid walba la xaaqay. waxaa laga yaabaa in dadka qaar yidhaahdaan waxaan oo carruur la laynayo oo dumar la laynayo oo magaalooyin la gubayo, ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo nasrigiisii xaguu ku maqan yihiin. waxani wax dunida ku cusub maaha. ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramay nin fircoon la yidhaahda maada facala fircawn. ilaahay baa sheegay carruur la gowracayo, dad la baabi'inayo. rabbaa qur-aanka kaga warramaya. qur-aanka rabbaa kaga warramay asxaabu lukhuduud iyo sidii loo galay, dad nooloo la gubay. walidaalika waxaynu leenahay waxyigu oo qur-aan iyo sunnaba sidee bay u boogadhayeen dadka muslimiinta aalaamtooda iyo xanuunadooda, una rajo geliyeen mustaqbalka amal iyo rajo inay leeyihiin. ilaahay isagoo nebi muuse la hadlaya wuxuu tilmaamayaa wadakirhum biayaami illaah ina fii dalika laaayaatin likulli sabbaarin shakuur. aayaddu walaqad arsalnaa muusa biaayaatina nukhrij qawmaka min adulumaati ila annuur wadakirhum biayaami illah. ilaahay wuxuu leeyahy nebi muuseanu u soo dirnay tolkii inuu mugdiyada ka saaro oo nuurka u saaro. nebi muusena tolkii waxaa la yidhi wadakirhum kuwaani biayaami illaah, ilaahay maalmihiisa kuwaani. ayaamullah waa maxay? waa ayaami alhalaaki waa nicma. waa maalmaha iskagedinaya ee maalmo dhibi ay soo gaadhay oo dadkiisa la laynayay oo la gumaysanayay oo la gumaadayay, iyo maalmo cadowgoodii ilaahay halaagay oo iyagu guulaysteen. maalmaha xasuusi baa ilaahay yidhi
نولشنا ولا بدا مع الموضوع وأيام للشدة والابتلاء بالشدة والضراء والسراء أيام ما الله يسكو يتحامى بالنعمة ينوى امتحان كلام إلهنا وحليه إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أرن كان وحا وغصو جنب إلهي لي آيات علامات أي وحقوقاتان لكل صبار شكور جزء كان دنبها آيات إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أفر ميلاد بالقرآن كاكاسو أرورتي أفر تميلاد لبا ميلاد كمده قضية تاريخية انت لك ورمي بو كت المامية إن في ذلك لآيات وحوانا إيا تصالة إيا علامة وغصو غانتهاي وقصة النبي موسى إيا قصة رير سبا اللهم باعد بين أسفارنا دا إلهايين لبا ميلادنا الآيات الكونية با إلهي كغور رمية وهو حال كغور رمية ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يا آيات كل معنى ددو إذن تاريخ دنوا آيات ككوني عركن يا أبوركيس يا سمضة يا بضة يا برقة يا وحجرنا وآيات لبضوا بوا وح أباهن وحلقوقاته يا سوح قوقاته لكل صبار شكور بإلهي عد كستو صبر بدنا وبلا مركي دعدا الصبر توات كيسته نعمة مركي دعدنا الشكر نقبضا لبدا صفة عد كستوله لبدا صفة ووجهي الإيمان بيدادان ولا بدا وجهي إيمان كليي ولذلك با إلهي مركو مرافقين تيا كفار تيا قوات المامي إن أنا أسباب تاسكو عبر قادن قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون بإلهي وما تغني الآيات والنذر آياتك يدقنين تمحي كتريان دولان رمين بإلهي سبحانه وتعالى إذن المؤمن هو الصبار الشكور كاسباك آياتك كني أي أنفعان إلهي مرهدو يلي وذكرهم بأيام الله داتك واحد كوانسا نبي موسو إلهي آيات كيسا أيامك إلهي ما المهاسيسك قدنا آياتك وحكت النبي موسى محوت الكيكولية وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وأيامك ليري كواني أي كوانينية سيدوك لنا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مسلمين تي مكة جوجتay markay dhibtu ku tira badatay adkaysan kari waayeen Khabaab ibn al-Arat baa nabiga u yimo yiri Ilaahi rasuulkiisiyo ala tastansir lana ala tad'u lana Ilaahi ma tqulna weydiis Ilaahi ma noo baridid nabigu alayhi salatu wassalam ninkani wuxuu rabaa in Ilaahi uu qulu weydiiyo nasri nabigu laakiin qadiya taariikhiya buu sheegay مشكلة دي وشاكتي واحد والله وقعد جاي معي مسألة تاريخية سأوجد بالنبي يقول حليه قد كان من قبلكم واحد شرتي بالنبي يقول لي دت كيدين كهرية متكمل ده أنت الله ساق هذا وقد لاق هذا أردول كلوا آسو ومشار الكالجا صاروا إن لبلو كلا شيء شري وحاسنين أنا الدين تيسة والله ساق هذا قفرد برا ودبتنا هيلب كي يلا فهلقوا كلا ديرو وحاصل من الدين تودا كما يعلن شريم بالنبوي إذا قضية تاريخية بكل دويني أنك كان حنون كشجانية دنك كلا إسلا حديث قضية ذات تاريخ أبو كر جعلينية رسول النبي يقول حليه والله لا يتمن الله هذا الأمر لا يتمن الله هذا الأمر إلهي ما قدرته إلهي ودم يستري دون الدين تتن حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون أهلين مركا القرآن إن بدن با إلهي قصص نوغا ورمي إن بدن با إلهينا لا يقول سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين إلهي سبحانه وتعالى آيات بدن وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك
waxaanu kaaga warramaynaa baa ilaahay yidhi wararkii rusushii hore wax qalbigaaga aanu ku dejinno ku xasilino. ayuha alaxibba, culammadu waxay yidhaahdaan in thuluth kaba badan malah ayaa qur'aanka ka warramaya ummadihii hore, kuwa la halaagay, kuwa muslimiina, boqorro, xadaarado dumay, xadaarado jira, iyo ghazawaadkii nebigu uu galayba calayhi salaatu wasalaam. walidaalika baa imaamu shaaficiyi raxmatullaahi calayh waxa uu ka soo naqlinayaa mu'arrikhii jabarti taariikh cajaa'ib ilaahaar, wuxuu ka soo naqlinayaa imaam shaaficiyi inuu yidhi man calima taariikha zaada caqluhu. riwaayaadka qaarkoodna waxay soo naqlinayaan waqalla khata'uhu. imaamu shaafici baa wuxuu leeyahay ninka taariikhda daraaseeya caqligiisuna wuu bataa, waa weynaadaa, gafkiisuna wuu yaraadaa. imaamu sakhaawiyi oo min culamaa'i shaaficiya ka mid ah isna wuxuu leeyahay aliclaam bitawbiikh liman dama ahla tawaarikh, kitaabkiisa la yidhaahdo man carifa taariikha kaman caasha dahra wajaraba alumuura biasriha. ninka taariikhda daraaseeya wuxuu la mid yahay nin wakhtiyadaa noolaa oo isagu arrimaha tajribeeyey. ayuha alaxiba, waxaynu leenahay markaa taariikhda waxaa ku jira duruus aad u ballaadhan. ma aha taariikhdu sida dadka badhay u haystaan litasliya waatarwiix, in dadka lagu madadaaliyo, loogu sheekeeyo, hebel baa halkaa maray, halkaasuu ka baxay. sidaa maaha. taariikhdu waa lilcibar. sardinta tan ma aha taariikhda rasmiga ee la sheegayo. taariikhda rasmiga la sheegaya waa maxay? alcilal walasbaab, inaad fahamto maxay waxani u dhaceen, maxaa kuwani u dumeen, maxaa kuwani u guulaystay, maxaa kuwani caynkan ay u dhacday. hada huwa taariikh. walidaalika waxay dhahaan taariikhda waxaa ku jira shaxdi lhimam, dadka hamigooda in kor loogu qaado, aan ya'si ku dhicin. dadku markay dhibtu ku badato ee dubaha kugu dhacaya tiro bato, dadka badh way quustaan. laakiin haddaad taariikhda si fiican u akhridid, quusta waad kala baxaysaa. waxaad kaloo ogaanaysaa dad inta ay jabeen guulaystay. taa macnaheedu waa maxay? wax qof hore u sameeyey mar labaadna in la samayn karo. hadday kuwa horeba guulaysteen iyagoo jabay oo baaba'ay, alif laam miim, ghulibat الruumu fi adna alardi wahum min bacdi ghalabihim sayaghlibuun fii bidci siniin. kuwa horo jabay oo haddana wax jabinayaa ilaahay tilmaamaya. taariikhda qur-aanku inooga warramayo ambiyada iyo duulkii waxay soo kala mareen iyo wixii ambiyada dhib loo geystay baa ilaahay ka warramaya, iyo qaar iyagoo noolba la laayay. saa awgeed baa ilaahay leeyahy intuu dhowr iyo toban nebi, 8 nebi intaa rabbi istaba dhigo ayaa ilaahay nebi maxamed la hadlayaa leeyahay ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahum muqtadi. 8 nebi inta ilaahay sheegay ayaa la yidhi kuwaa weeyaan kuwii ilaahay hanuuniyey ee hanuunkooda ku dayo. taariikhda daraasadeeda waxaynu ka faa'iidaynaa inaynu garanno jidka mujrimiinta. laakiin ceebtu waxay ka taagantahay ku dad hore ku jabeen ka kaalay, kuwaad adigu ku jabtay oo shalay ku jabtay oo daraad ku jabtay, markaad aragta haddana waayeelkaagii iyo siyaasiyiintaadii oo kii kuii dhawaaqaya. nin la odhan jiray albert einstein oo fisikisyahanadii dunida ugu weynaa ee qarnigii dhaweyd soo maraya baa la yidhi qabiga waa maxay? doqonka yaa la yidhaahdaa buu yidhi. doqonka waxa la yidhaahdaa buu yidhi nin waddo maray oo tijaabiyo mar labaad tijaabiyo labadaba ku gafay oo haddana raba inuu tijaabiyo buu yidhi doqon waa kaas buu leeyahay. soomaaliya qabiil bay tijaabisay oo tijaabisay oo welina waa wadda in laysu dilo oo uno la wadda aad shalayba ku jabtay ood waxba ku weyday inaad haddana imika tijaabiso oo haddana mar labaad tijaabiso oo mar saddexaad tijaabiso waa caqli darro. إلهينا وحين لا ينتو قصص كورمي وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. سبان آيات كيدون كو عدين يا با إلهي لي سايدون كم مغطى وددك ودنبيلياشا دنبيلياشا وددو دوينا نارك رسائن وغوى عنه. إلهي وحليه سبحانه وتعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال.
waxaad degteen baa ilaahay leeyahay dhulkan mara baa la yidhi fasiiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin war dhulka maroo bal dadkii hore halaagsamay ciribtoodu waxay ku dambaysay arka ilaahay wuxuu leeyahay waxaad degteen dhul dad horoo dulmi sameeyey ay deganaayeen waxa kaloo aragteen wixii aan ku sameeyey baa ilaahay yidhi tusaalena waan idiin siiyey baa rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala idan markaanu leenahay taariikhda inaynu daraasayno inaynu sardinaa waxba tari mayso inaynu sheegna maaha waxaynu rabnaa inaynu ogaano maxaa lagu jabaa maxaa lagu baaba'aa dadkii dumay maxay ku dumeen dadkii dhismay maxay ku dhismeen sunanullahi fi lhalaak maxaa ah waxa kaloo taariikhda laga faa'iidaa bay yidhaahdaan saadaasha mustaqbalkaaga markaad taariikhdii hore daraasayso wadciga maanta joogana aad aragto berri halkaynu degayno waad saadaalin kartaa ilaahay oo inaga soo gaadha mooyaane siday shalay ahayd markaynu garanno maanta waxay ku sugantahay inaynu garanno waynu saadaalin karnaa berrito waxa dhaci doona walidaalika baa maanta jaamacaadka waaweyn ee dunida waxa jooga researchers niman cilmi baadhayaal iyo niman akademiyiina oo shaqadoodu ay tahay at-tanabbu bil mustaqbal waa khubaro jaamacaadka jooga waxa iyagu baadhaan ee laga rabaana waa maxay at-tanabbu bil mustaqbal siday u ekaanaysaa mustaqbalka dhow war Yurub kontonka sano soo socda soo noqon doona buu daraasaynaya China kontonka sano soo socda maxaa dhici doona dunida kontonka sano soo socda maxaa isbedel ka dhici doona مغيب وجه مايا وحي شريب سود راسي دبتنا وحو أجي هاي وحل لغو شبيه وحن لغو شبين دبتنا وحو أجي يا وحمان تشوجه وحاسد يوجيهين دبتنا وحو صادالين كربريت سووا كادونتو إلى هنا وحو لا يفقصص القصص لعلهم يتفكرون لعلهم وحي مدينين يفكران بإلى هيري قصص كوجا وربان ليري أكفر فرحان ما هي شكذا هلا يابان إلهي وحيد وحي مدين يفكران والعاقبة للمتقين ابن خلدون تاريخيا كي مسلم كي لورن شريبا وحكولي كتاب كيس تاريخ ذا مجلد أفريقيا طبنات أيوه حكولي الماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء الماضي شيء تجي شيء صار صعدة ووجا كان شيء بدأ يقول بيوه سي بيا وجي بيا هدي درير يا أنت نوراكم مرتين أنت صار صعدة وتصلنا عيون سماء وحلاي التاريخ ده بني آدم كنا وصدا ساكله إذا وحين السويدين النتر هذا بدل لهم حي وحن ودعن حصات أنا ودعي وحين السويدين إنه وحين وشبنا maxaa gaala inooga guulaysatay maxaa yuhuudi inooga gacan sarraysa maxaa madaxdeenu wixii yaraayay aantiye meesha yaala ay u qaateen oo u cuneen maxaa waxa kan u dhacaya waxa soo dhan jawaabtoodu way koobantay jawaabtoodu waa maxay wa qul huwa min indi anfusikum qul huwa min indi anfusikum saxaabo ka fadli badan oo nabi maxamed la joogo وأبي بكر يا عمر يا عثمان رجع ساعة وإلهي كو دورتيا أيات شبي مركي شبنا إلهي وحكو يري أن هذا مركي إرادين قل هو من عند أنفسكم ما هذا كفضل بدن بركة هذا وضد باطل كقاده قالوا لما كنتم دون تاون هذا تسكت صار نقطه جوش ويدوده ولذلك ما إسلق قصة أحد إسلا قصة إلهي وحكولة يا صحابة ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه إلهي وحيدين يبوهاي النصر أها وإذن كرون شاقي مركا قماد يسين با إلهي لي مركا حس تريسين مركا درين تريسين اللين يسين مركا بقوش إلهي وإذن كرون شاقي با ليلي قورما هذا نبتو دعضي حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم مركا أيدنكم مشكلة دقيستين بمشكلة دوتين قرآنك سيدي يكونتك آيات هذا إلهي وكذا ورميه قصة أحد يشبك كل عين مسلمين تا مال نبى سيدي يكونتك آيات كم تشرتو
quraysh baa xoog lahayd oo idin jabisay meelnaba kuma jirto 200 faras oo Khalid wadaaya dhabarka idin kaga yimo idin jabiyay maxaa loo sheegi waayay Khalid baa dhabarka kaga yimee Khalid waa run 200 faras waa watay dhabarka waa kaga yimi laakiin Khalid goormuu chance ka helay markii muslimku godoloolada sameeyay walidaalika ninka taariikhyahanka ee odagii Ingiriis dhintay Toynbee waxa la yiraahdaa qarnigii 20aad oo taariikhyahanka ugu weyn bay gaaladu inagu yiraahdaan dhowr iyo 20 xadaaradood buu daraasad ku sameeyay wuxuu leeyahay word la yiraahdo al-umam tantahir wala tuqtal bulay waxay falsafadii soo dhabitaasay isugu timi al-umam tantahir ummaduhu suicide bay sameeyaan way isdilaan laakiin lama dila bulay waa maxay weedhatani ummad jabtay haddaad aragta bulay dabada ha ka raadin sababahay ku jabeen gudahooda ka raadi bulay ummad jabtay haddaad aragto yuhuud ba kan inagu samaysay yuhuud ba ghazalaynaysa yuhuud ba may ku dhici lahayd haddii muslimku muslim yahay su-aasha isweydiinta le markaa ma aha yuhuud baa waxaa samaysay ama maraykan baa waxaa sameeyay ama gaalo kale waxaa samaysay su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan innagu maxaynu nahay sawgeed buu taariikhyahankani ilaahay baa hortii inoo sheego inuu yidhi qul huwa min cindi anfusikum laakiin kanna tajribadaa bartay markuu daraaseeyay xadaaraadka tirada badan leh tajribadii u soo baxday waa aragnimadii waxay keentay inuu yiraahdo ummaduhu iyaga isgowrace cidima disha buu leeyahay intixaar suicide isdil bay sameeyaan buu leeyahay ayuha alahibba الإمام ابن الأثير تاريخيا كمسلم كيوينا هي في كتابه الكامل في التاريخ مركو كور رمي وحن نولا قيبتي هوريد تتاركو أي وحلايان انتي آني بغداد سوغارين دولة الخوارزمية انتي دومية إسلا عصرقا دقال كلاك السعودية حق قلبيتك oo shaam iyo dhanka kana oo nimankii reer galbeedku ay muslimiinta soo weerareen oo xurub saliibiya ba socday isla waqtiga waxa socday inta dhaxana dagaal boqorada yaryar ee muslimiintu isku hayaan oo midba mid ku duulayaan labada dhanba muslimiinta dagaal ba kaga socda dhanna tataar ba ka soo socda dhanna الحروب الصليبية reer galbeed ba ka soo socda inta dhaxana boqorada yaryar ay joogay iyaga isku mashquula midba mid buu dilaya markaasuu intuu sheegay qadiyadaas oo yiri muslimiinta iyo islaamkii balaaya ku dhacday buu leeyahay xaggan tataar ba ka galay xagganna waxa ka galay buu leeyahay reer galbeedkii intii seefta ka nabad gashayna buu yiri fitna iyaga dhexdooda bay mashquul ku yihiin warkiisa soo dhan ma waxaan u socdaa markaasuu wuxuu odhanaya ku gabagabaynaya fa inna haa'ulaa'i tataar إنما استقام لهم هذا الأمر لعدم المانع تتار كادر كيسان بولي أرنكو وحو وقوم يا أسر تجلي وحس كدعي ويا بولي ما ها تتار كحق بدني وحي ويا بولي لعدم المانع ومحولي لعدم المانع وحي هذا دولة ده سنترلايزد كأنت بدن نوضة إدت كود الجميع حقوق وقبطة ee u diida wax madaxaba la dhaqaaqi kara inay jiraan haday dumaan umadaasi way tirtirantaa bay yiraahdaan tusaalayaalka markay bixinayaan kuwan bay ku bixiyaan Muhammad al-Khawarizmi ninkii haystay muslimiinta barigu boqorradii yaryaraay agteedo oo dhan buu agta mariyay isaga mooyaane in wax kale jiraan buu diiday markuu isagu jabayna ilaa Baghdad ba toos loo yimay ilaa cid kale oo celisay ma jirtee muslimkii kale isaga hore u sii laayay isaga gumaaday dabeetana way suurto gali weyday وها تاريخ ذمرك أيها الأحبة وحن لنا يدا عبرك كسجي ولذلك ما منطق أقومها نعصب لها يا ما أقومها سياسية هالنقطة أما أقومها اجتماعية سوسيولوجية هالنقطة أما أقومها اقتصادية هالنقطة إن بدن بسلكو دمان توحي هي قضية تاريخية تاريخ الدراسة اللي قسمها يبقى لقى سور ديرية علمية ذاتان مثلا نظريات كسياسية ابن خلدون بكمدة كنظرية العصبية دتكو إني يشرتو مهما يجوا كلا قديسين وحي وضع إلى شنا يعني يشرتو تعصب أيو سمعين يا مثلا النظرية دي مالك بن نبي نظرية القابلية للاستعمار
dad lama gumaysto buu leeyahay ilaa iyo inay yihiin dad aqbali kara gumaysiga marka adaa xad gaadhay gumaysiga aad aqbali karto markaas un baa lagu gumaysan karaa taa macnaheedu waxa weeyaan haddaad ummad xorriyad la rabto cuyuubteeda daraaseeye xoogga kuwa kale waxba isku mashquulinin cuyuubta iyadu wadato ceebaheeda sidaad u bogsiin lahayd ku talagal waxaa ka mid ah Gustav Le Bon kii Faransiiska ahaa نظرية سيكولوجية الجماهير ونظرية ودراسات تاريخ دا وكسر نرينيري أو شيء جيسا وعيجا ومدة وعيجا ده الرأي العام كسيد الله أبوره يمرك ودمه وحقدعه وأضيع إنه هذا كور من النظرية دي سلايد هذا التحدي والاستجابة كل هذه النظريات هذا القرآن كسيفي عنه دراسين لهي تاريخ ده كتير توات كمان مار مكارل هاي بين ورا كرنا إذن تاريخ ده الدراسة ده دوحن لنا شيء كماها وواح استنتاج لقصة مايو وواح لفهمه علده حقين جاهي ستا سببته وحن ينقول عن محيطه ما وحنه هزيمة عسكرية ينقول عيا ما حضارة ده إنه أدنتي ما فلسفات كانوا عصبوا ودشان ما أفكار تعصبوا ودلتا وحصل مو تاريخ وبهن الدراسية أيها الأحبة وحررنا بقى آدم ككلا قري وقت وما هينه وحين نسكت إن بالقرآن كنتوا تلمامين وحكة تلمامنا إلهي النبي محمد